maalin wanaagsan ku soo dhowaada odoros maanta waxaynu eegaynaa buug la yidhaahdo the autobiography of Malcolm X oo ka sheekeynaya taariikhdii Malcolm X oo ay wada qoreen Malcolm X iyo qoraal la yidhaahdo Alex Haley soona baxay 1965 sida magaciisaba ka muuqata buug wuxuu ka sheekeynayaa taariikh nololeedkii Malcolm X waxaan isku dayi doonaa inaynu si guud u dulmarno taariikhdiisa oo kooban Malcolm X waxa uu dhashay 1925 waqti ummadda madow ee Mareykanka degan lagu hayay tacaddi iyo cunsuriyad aad u badan aabihii waxaa la odhan jiray Earl Little hooyadiina waxaa la odhan jiray Louise Little aabihii waxa uu ahaa nimanka diinta Kristanka faafiya waxa uu sidoo kale ka mid ahaa urur la yidhaahdo Unia oo iyagu aaminsanaa inaanay marnaba ka helaynin wax xuquuq ama ixtiraam ah dadka cad uguna baaqayay dadka madow ee Mareykanka degan inay ku noqdaan meesha ay ka yimaadeen ee Afrika Malcolm cadaawadda iyo nacaybka cadaanku uu qabo madowga wuxuu la kulmay isagoo aad u yar waxa aabihii la dilay isagoo 6 jir ah geerida aabihii kadib noloshu aad bay ugu adkaatay siiba hooyadii oo culays badan uga imanayay dhinaca dawladda oo ku eedeynaysay inaanay ka warhaynin carruurteeda awoodna u lahayn inay kuriso 8 ciyaalo keligeed muddo yar kadib markuu Malcolm ahaa 12 jir ayaa hooyadii la geeyay dhakhtarka dhimirka isaga iyo walaalihiina loo kala qaybiyay reero kale oo korsada Malcolm waxa uu arday wanaagsan oo ku fiican waxbarashada balse wuxuu iskuulka ka niyad jabay maalin uu macalinkiisu weydiiyay waxa uu jeclaan lahaa inuu noqdo markuu weynaado oo ugu jawaabay qareen ama garyaqaan oo macallinku ku yiri macquul ma aha inaad noqoto qareen adigu waxaad ku wanaagsan tahay inaad noqoto nijaar wax yar kadib wuxuu imiday Boston oo uu ku soo booqday walaashii oo deganeed xaafad madowgu aad ugu badan yahay wuxuu halkaa kula kulmay duni aad uga duwan meeshii uu ka yimiday wuxuu arkay dad madow oo ku faraxsan midabkooga wuxuu arkay dad madow oo shaqaysanaya ama dad madow oo ganacsiyadooda haysta Boston waxa uga bilaabmatay nolol cusub sidaa darteed buu mar dambe leeyahay ilaahay baa mahadlay keenay Boston haddii aanan iman lahayn Boston waxaan imika ahaan lahaa madow Kristan ah oo nasakhan wuxuu markiiba si wanaagsan ula qabsaday magaalada waxa isbarteen oo aad u saaxiibeen in la yiraahdo Shoti oo meesha kaga soo horeeyay isaga wax badan ka caawiyay isla markaana u soo helay shaqadiisii ugu horeysay oo ahayd baalashle wuxuu ka shaqo bilaabay club lagu tumo musiga jaazka waxaanu ka bahaw baalashayn jiray muusishano iyo fanaaniin caan ahaa waqtiga shaqadiisu intaasun kuma ekeen wuxuu sidoo kale ka iibin jiray daroogada ama maandooriyaha kolba waxay nimankaasi uga baahdaan waxa beriga qurux iyo ilbaxnimo u ahayd dadka madow inay timaha jilcistaan ama iscadeeyaan iyagoo weliba adeegsanaya dawooyin halis ah oo qofka wax yeeli kara wuxuu Malcolm markii ugu horeysay jilcistay timaha isagoo kaashanaya saaxiibkii Shoti beri dambe isagoo ka hadlaya wixii ku kalifay inuu timaha jilcisto wuxuu ku sifeeyay inay tahay sida uu cadaanku u maandooriyay dadka madow ee uu uga dhaadhiciyay wax kasta oo qurux badan inuu cadaan yahay wax kasta oo fool xunina madow yahay taasina kaliftay in dadka madow isku dayaan inay soo ekeysiyaan cadaan marka uu sidaa leeyahay waa ugu yaraan 70 sano ka hor balse waxa nasiib darro ah in ilaa maanta 2020 ay jiraan dad iscadeeya ama timaha jilcista Malcolm shaqo u dhiibtay isaga oo saaran oo ka dhex shaqeeya tareen u kala baxa Boston iyo New York oo shaqadiisu tahay inuu cuntada ka iibiyo dadka rakaabka ah ayaa wuxuu markii ugu horeysay fursad u helay inuu booqdo Harlem oo ah xaafad ku taala New York oo caan ku ah dhaqanka dadka madmadow oo ay ku yaalaan clubyo badan oo jaazka laga tumo aad buu uga helay magaalada uguna bogay wuxuu isla markiiba go'aansaday inuu u soo guuro wuxuu 1942 ka shaqo bilaabay makhaayad ku taala Harlem oo uu ka noqday kabalyeeri inta uu makhaayadda joogay wuxuu si fiican u kala bartay Harlem dadkeeda iyo suuqyadeedaba cidda la aamino iyo cidda laga fogaado waxaanu inta shaqadiisa dhinac waday oo uu hoosta ka iibinayay mukhadaraadka muddo yar kadib ayaa Malcolm laga eriyay shaqadii makhaayadda waxaanu toos u galay suuqa madow waxa ay isbarteen oo uu bilaabay inuu u shaqeeyo nin la yiraahdo Sammy waxaanu iibin jiray daroogadiisa waxa uu la xidhiidhay macaamiishiisii Boston oo u badnayd fanaaniin iyo muusishano oo uu ka iibinayay mukhadaraadka suuqiisu aad buu u wanaagsanaa balse wuxuu bilaabay isticmaalka mukhadaraadka
waxaana ku adkaatay sii joogidda New York lacaga badan oo lagu yeeshay aawadeed wuxuu u baxsaday oo uu ku noqday Boston waxa iska heleen saaxiibkii Shorty iyo laba hablood oo caddaan ah oo ay ku shuraakoobeen afartoodu burcadnimo ama tugnimo bareed ah waxa ay habeenkii u dhacayeen guryaha dadka tujaarta ah si ay u baadhaan waxaa Malcolm lagu qabtay dembiyada maxkamadda la soo taagay 1946 waxaana lagu xukumay 10 sano oo xariga Malcolm waxa uu ku baraarugay oo wax badan ku bartay intii uu ku jiray jeelka waxa isbarteen nin la yiraahdo Bimby oo u sharaxay qiimaha iyo awoodda ay leedahay waxbarashadu wuxuu kula taliyay inuu tago marmar maktabad ku taalay jeelka Malcolm wuxuu ka helay oo aad ula dhacay wax akhriska waxaanu akhriyay buugaag aad u badan oo kala duwan waxa isla waqtiga waraaqo soo diray laba nin oo ay walaaleeyihiin oo uga waramayay urur diimeed cusub oo la yiraahdo ummadda islaamka oo hogaamiye ka ahaa nin la yiraahdo Elijah Muhammad oo isagu ugu baaqayay dadka madow inay qaataan diinta islaamka balse aan ahayn islaamka saxda ah ee aynu inagu naqaano ee ahaa islaam la siyaasadeeyay oo ay ka dhigeen diin madowgu gaar u leeyahay Malcolm waxa uu ku islaamay oo diinta ku qaatay jeelka dhexdiisa waxa uu sii waday akhriska buugta taariikhda wuxuu wax badan ka bartay taariikhda dadka madow sida ay ku yimaadeen Mareykanka wuxuu wax badan ka ogaaday gumaysiga waqtiga ka socday wadamo badan oo Afrika ah waxa uu fidinta diinta ka dhex bilaabay isla jeelka dhexdiisa wuxuu sidoo kale abaabulay doodo uu u qabanayay maxaabiista la xidhnayd wuxuu uga faa'iideysanayay doodahaas inuu sheego tacadiyada iyo xasuuqa ay geysanayeen dadka caday iyagoo adeegsanaya diinta Kristaanka jeelku waa meesha uu ku ogaaday inuu leeyahay hiba aftahanimo oo dadku dhageysanayaan fariintiisa Malcolm waxa uu jeelka ka soo baxay 1952 isagoo ay ka go'an tahay inuu dadka madow gaarsiiyo fariinta Elijah Muhammad inta aanu jeelka ka soo bixin wuxuu maalin walba warqad u diri jiray Elijah Muhammad Elijah wuxuu Malcolm ku casumay gurigiisa maalinta wuxuu Malcolm ka codsaday in uu faafiyo fariintiisa oo aanu kana rabin wax mushahara oo bilaash ugu shaqeynayo Elijah waa ku ogolaaday Malcolm waxa uu toos u bilaabay shaqadiisii oo ahayd inuu fariinta Elijah Muhammad gaarsiiyo dadka madow muddo yar kadib markuu Elijah arkay kartida iyo dadaalka Malcolm waxa uu ka dhigay wasiir ka mid ah wasiirada ururka ummadda islaamka waana marka uu Malcolm magaciisii ahaa Malcolm Little ku bedelay Malcolm X waxay u taagan tahay inaan magaciisii asalka ahaa ee Afrikaanka ahaa la garanayn Malcolm waxa uu dardar hor la geliyay ururkii ummadda islaamka waxa uu masaajida ka furay magaalooyin badan oo ku yaala Mareykanka waxaan marnaba maskaxdiisa ka bixin markii uu lunsanaa iyo meelaha uu tagi jiray wuxuu ku soo noqday oo soo degay magaalada New York waxaanu bilaabay inuu fariinta gaarsiiyo dadka madow ee nolosha ka dhacay ama mukhadaraadka iyo maandooriyuhu la hadheen Malcolm waxa uu sidaa ku muslimiyay dad badan oo madow ah waxa uu sidoo kale tagi jiray kaniisadaha isagoo oo leh diinta Kristaanku waa diinta cadaankuna waa dadkeena gumaysta ee xuquuqdeena dafirsan kaalay oo arka diin aan leedinka xigin Malcolm X wuxuu aad caan ugu noqday dhacdo ka dhacday New York 1957 markii boolisku garaaceen oo saldhigga dhigeen nin la oran jiray Hilton oo ka mid ahaa ummadda islaamka oo aan waxba galabsan balse kala qabanayay dad meesha isku leynaya markii Malcolm loo soo sheegay arrinta wuxuu toos u tagay saldhiggii uu ku xidhnaa Hinton isagoo wato 50 nin oo iyaguna ka mid ah ururka ummadda islaamka kadib markuu arkay xaaladdu ku jiray Hinton waxa uu ku qasbay taliyihii saldhigga haystay in si degdeg ah loo geeyo dhakhtar muddo yar kadib markuu Hinton bogsaday waxay dacweeyeen maamulka magaalada New York waxaana uga qaadeen lacag ah $70,000 dhacdadan ayay saxaafaddu aad u falanqeeyeen dad badanina ku bartay Malcolm X iyo ururka ummadda islaamka 1958 ayuu Malcolm X guursaday Betty X oo u dhashay 6 hablood 1961 ururka ummadda islaamku waxay gaadheen horumar ballaaran waxa soo galiyay oo ku soo biirayay dad badan waxa kor u kacaysay tirada masaajidada waxay sidoo kale abaabulayeen ama qabanayeen kulamo aad u waaweyn waxaa dadka soo jiidanaysay shakhsiyadda Malcolm X aragtiyihiisa iyo weliba aftahnimada uu ku soo gudbinayo wuxuu bartilmaameed u noqday saxaafadda oo uu siiyey waraysiyo badan su'aalaha la weydiin jiray badanaa ee soo noqnoqda waxaa ka mid ahayd sababta uu caddaanka ugu tilmaamo shar ama wax xun waxa uu kaga jawaabay inaanay hayn mala awaal uu isagu samaystay balse ay tahay xaqiiqo jirta waxaanu tusaale u soo qaatay waxa uu caddaanku ka samaynayo Afrika waxa uu caddaanku ku sameeyey madowgii
maraykanka yimiday iyo weliba waxay dadka caddaanka ahi ku sameeyeen dadkii ay ugu yimaadeen maraykanka wuxuu khudbado badan ka jeediyey jaamacado ku yaala maraykanka isagoo mar walba hoosta ka xariiqaya sida uu daacad ugu yahay abaal weynna ugu hayo Elijah Muhammad wuxuu marar badan diiday inuu waraysiyo saxaafadda waxaanu ku yidhi waxaad waraysan kartaan oo su'aalihiina weydiin kartaan Elijah Muhammad sidaas oo ay tahay haddana Elijah Muhammad wuxuu aad uga hinaasay inuu Malcolm ka magac weynaado oo uu noqdo sawirka iyo astaanta ururka ummadda islaamka Malcolm markuu arrintaa ogaaday wuxuu dhimay dhaqdhaqaaqiisa iyo khudbadihii uu jeedin jirayba xiriirkoodu wuxuu aad u sii adkaaday 1963 markuu Malcolm X maqlay inuu Elijah Muhammad uu reeyay hablo dhowr ah oo u shaqaynayay ama kaag iyo yaab bay ku noqotay inay waxyaabaha caynkaasi ka suurtoobaan ninkii u ahaa haldoorka ee uu ku dayanayay waana ka degi weyday oo uu u qaadan waayey ilaa uu indhihiisa ku soo arkay oo uu soo wareystay hablihii dhibtu gaadhay xidhiirkooga oo aad u qasan ayaa dabayaaqadii isla sanadka waa 1963 waxaa la dilay madaxweynihii Maraykanka ee Kennedy mar Malcolm wax laga weydiiyey sida uu arko dhimashada Kennedy waxa uu ku jawaabay waxa aad beerato umbad guranaysaa oo uu ka waday in Maraykanku beertay cadaawad dad badanna godob ka galay madaxweynaha Kennedy oo la jeclaa darteed ayaa waxay keentay inay dad badan oo caddaan iyo madowba isugu jira ka cadhoodaan hadalka Malcolm X waxaa isla markiiba go'aan ka soo baxay ururka ummadda islaamka dhigaya inaan Malcolm X hadli karin muddo 90 cisho balse waxay dad isaga kaag dhawaa u xaqiijiyeen in ururku go'aansaday in la dilo Malcolm X waxa Malcolm isu qaban weyday oo uu fahmi waayay inuu ninkii uu dadkaba u jeclaa ee naf iyo maalba u hurayay maanta raba dhimashadiisa waxa Malcolm dhowr jeer loo sheegay in islaamka uu Elijah Muhammad baro iyo islaamka saxda ahi aad u kala duwan yihiin Malcolm waxa uu go'aansaday inuu xajo oo waxa uu tagay Makka marka uu yimi Makka waxa dhaboobay wixii loo sheegayay oo waxa uu ugu yimi islaam aad uga duwan islaamkii uu Elijah Muhammad barayay wuxuu arkay islaam nooc walba leh wuxuu la kulmay nin caddaan ah oo indho bluuga oo ku ag tukanaya saxni wax kula cunaya oo weliba walaal ku leh oo aan yasaynin sidii caddaankii Maraykanka waxay wax badan iska bedeleen aragtidii uu ka haystay caddaanka wuxuu intuu joogay Sacuudiga la kulmay Amir Fahad markaa kadib wuxuu tegay wadamo badan oo ay ka mid yihiin Ghana iyo Nigeria wuxuu ka hadlay oo khudbada ka jeediyay jaamacado badan wuxuu sidoo kale la kulmay hogaamiyayaasha wadamadaas waxa uu mar walba lahaa waa inay Afrika ogaato waxa ka socda Amerika iyo dhibaatada ku haysata dadka madow waxa uu isla waqtiga la baxay magaca Al-Hajj Al-Malik Shabazz wuxuu New York ku soo noqday May 22 1964 waraysyada saxaafadda siiyay waqtiga waxa uu ku sheegay sida ay isku bedeshay aragtidiisu waxaanu yidhi waxaan fahmay inaan caddaanku ku dhalan ama dhaxlin cunsurinimada balse waxaan aaminsanahay in caddaanka Kristanka ahi ku beereen jiilal badan oo caddaan ah inay madowga ka sareeyaan taasina waa ta keentay dhibta maanta ka taagan Maraykanka waxaad ka arki kartaa rabshadaha iyo buuqa maalin walba ka kacaya geetooyinka ama xaafadaha madowga dego ee Maraykanka xaafadahaas waxa ay ka dhasheen oo abuuray jiilal badan oo madow ah oo cunsurinimo iyo tacaddi nooc walba bulshada cadi u geysatay waxaanu arkaa inay tahay bulsho miina ah oo dadka cad iyo dawladduba halkaas kaga aaseen oo haddii aan dhaqso wax looga qaban qarxi doonta haddaba si xal loogu helo oo madowgu uga baxo dhibaatadan Malcolm wuxuu fahmay inay tahay hawl khusaysa qof kasta ee aanay lahayn gaal iyo muslim sidaa daraaddeed baa wuxuu aasaasay Organization of Afro-American Unity oo noqonaysa ururka midnimada madowga Amerika wuxuu sidoo kale soo dhaweynayay dadka cad ee raba inay caawiyaan Malcolm X waxa uu yidhi waxaan iska qoomameeyaa ardayad yar oo caddaan ah oo ii timiday markii aan ku jiray ururka ummadda islaamka oo igu tiri sideen idin caawin karnaa oo aan ku yidhi nama caawin kartid maanta haddii ay timaado waxaan ku odhan lahaa waxaad wacyigelinta ka bilaabi kartaa xaafaddiinna iyo jaarkaaga Malcolm hawlihiisa ayuu iska watay balse hanjabaadaha uga imanaya ururka ummadda islaamku marnaba ma kala joogsan uu ogaa inuu dhimanayo oo caddaan cunsuri ah ama ururka ummadda islaamku dilayaan Malcolm guriga uu degan yahay waxa siiyay ururka ummadda islaamka markii uu ka ahaa wasiirka waxay ku amreen inuu ka baxo guriga maadaama oo aanu imka ka mid ahayn ama ka tirsanayn ururka ummadda islaamka balse waa uu ka diiday inuu ka baxo guriga 13 February 1965 wuxuu habeen madow ku kacay gurigiisa oo gubanaya nasiib wanaag way ka badbaadeen isaga iyo reerkiisuba 21 February 1965 ururka midnimada madowga Amerika ee uu Malcolm aasaasay waxa ay kulan ku qabanayeen hool ku yaala New York
wax yar kadib markuu soo fulay stageka ee uu bilaabay khudbadiisa ayay 3 nin oo ka mid ah ururka ummadda islaamku toogasho ku dileen Malcolm X allaha u naxariistay waxa uu ahaa 39 jir wuxuu ka mid yahay dadka ugu saameynta badan leh taariikhda Mareykanka fiidiyogan intaas ayuu ku eg yahay haddii aad doonayso taariikhda oo dhammaystiran waxa iga tala ah inaad akhriso buuggan ama aad daawato film laga dhigtay buuggan oo la yiraahdo Malcolm X oo uu sameeyay nin la yiraahdo Spike Lee actor ama jilaana ka yahay Denzel Washington